هذا هو سر قوة أوروبا. لو استطعت أن أصنع محركاً كهذا لغيرت اتجاه تاريخ اليابان. هذا ما قاله تاكيو أوساهيرا عند دراسته الميكانيكا في أوروبا. markii aan indhahayga ku arkay aan u soo raray Jabbaan sirtii ay ku horumareen reer Yurub ayaan seexday 10 saac oo xiriir ah mana seexan 10 saac oo xiriir ah muddo ku dhow 15 sano ku soo dhow sheekada ardaygii ka dambeeyay horumarka Jabbaan intaan u gudagelin muuqaalka waxaan kaa codsanayaa in muuqaalka la gariso si dad badan u gaaro annagana farxad ay noo tahay Tagyo waa arday u dhashay dalka Jabbaan oo loo diray in jaamacaddu ka soo barto dalka Jarmalka kuliyadda makaanikada iyo sida matoorada loo sameeyo isagoo naftiisa ka hadlaya ayuu yidhi Jarmalka ayaan aaday anigoo xambaarsan riyadeedii gaarka ii ahayd waxaana markuu hami weynahay inaan sameeyo matoor waxaan aqaanaa in farsamo kasta ay leedahay shay sir ah farsamadaasna u ah udubdhaxaad haddii aan barto sida loo sameeyo moodhalkaasi waxaan gacanta ku dhigay sirta farsamada ay ku dhisan tahay isagoo hadalka sii wata ayuu dhahay macallimiintii meesha ay naga bari lahaayeen sida matoorada loo sameeyo waxay xifdisiyeen buwaag aad u fara badan buwaagtaasna ma ahan kuwo aan ka helayo aqoontii aan ku samayn lahaa matoor waayo farsamada xifdis uma baana waxay u baahan tahay in lagu tababaro laguna tuso sida la isugu xiri lahaa oo la isugu rakibi lahaa biraha iyo moolasha Tagyo marka uu arko matoor waxa uu kaga dhigan yahay alxiraale aan la furi karin sababtoo ah lama barin sida loo furfuro sida loo cabiro bir kasta ku jirta matoorka mar kale isagoo ka hadlaya hilowga uu qabo inuu matoor ku furfuro gacantiisa waxa uu leeyahay waxaan u hilowsanahay sidii aan ku gaari lahaa matoorkaas in gacantayda aan ku furfuro kuna xirxiro aqoon aan u leeyahay bir kasta meesha ay ku jirto iyo sida loogu rakibo sida aan ku baran lahaa bir kasta iyo bool kasta silig kasta iyo shaqada ay qabanayaan waxaan u hilowsanahay in matoorka habsiyo sida waalid ilmihiisa muddo badan ka maqnaa oo kale waxaan rabaa inaan is arko anigoo qaba dharka ay ka buuxdo ooliyada iyo naaftada maalin maalmaha ka mid a ayuu arkay shirkad xayeysiinaysa matoor ay soo bandhigi rabtay matoorkaasi waxaa lagu sameeyey waddanka Talyaaniga Tagyo waxa uu leeyahay waxaan soo qaatay lacagtii biilka waxaana la aaday bandhigii waxaan arkay matoor ay la egtahay awoodiisa 2 faras qiimihiisana uu yahay lacagtan bisha biilka u soo qaatay waxaan kala doortay in lacagta biilka aan hayso aan isticmaalo weligeygana aan ka salgaaray matoorka qaabka uu u shaqeeyo iyo inaan ku iibsado matoorka lacagtii biilka halka aan kaga salgaaro riyadeedii ahayd inaan sameeyo matoor shaqaynaya ugu dambeyn matoorkii ayaan ku iibsaday lacagtii biilka waxaana u soo qaatay guriga intii aan u soo socday ayaa lugaha i cuslaaday farxad daraaddeeda waxaan aaminay inaan maanta garabka ku wato wixii adduunka ugu qaalisanaa saan u socday ayaan matoorkii dhigay miis guriga ii yaalay markaasi ayaan fariisay anigoo aaminsan inaan guriga soo gashaday riyadeydii ka dhabaynteedana ay aniga isugayso waxaan naftayda uga sheekaynayaa matoorkani waa sirta ay ku horumareen reer Yurub haddii aan sameeyo matoorkani waxaan hubaa in nolosha iyo taariikhda Jabbaan wax badan ka bedeli doono Tagyo waxa uu soo diyaarsaday waraaqo iyo qalimaan wuxuuna guud ahaan sawiray matoorka wuxuuna ku xujiyey in bir kasta iyo bool kasta sawiro meesha uu ku jiro iyo sida uu ugu jiro dadaal dheer oo ay weheliso daal iyo dhafar waxa uu ku guulaystay inuu furfuro matoorkii kadib ayuu haddana u jeestay inuu isku rakibo bil kastana meesheedii ku celiyo waxa uu shiday matoorkii wuuna shaqeeyey Tagyo waxa uu leeyahay markaa maqlay codka matoorka jirkaygii waxaa buux dhaafiyey farxad mana aqaano waxaan ku qiyaaso furfuridda iyo xirxiridda matoorkani waxa ay ku qaadatay 3 maalin oo hal mar wax cunayay hurdo gaabanna seexanayay gudoomiyihii ardada Jabbaan wax ka barata dalka Jarmalka ayuu u tegey si uga sheekeeyo inuu ku guulaystay inuu matoor furfuro kadibna xirxiro gudoomiyihii waxa uu ku yidhi waxaad qabatay wax fiican laakiin waxaan kuu keenayaa matoor hallaysan waxaana kaa rabaa inaad cillad saarto kana dhigto mid shaqaynaya Tagyo waxa ay ku qaadatay inuu matoorkii cillad saaro 10 maalmood oo nasiino lahayn ugu dambeynna uu ku guulaystay inuu cillad saaro gudoomiyihii marka uu tusay inuu cillad saaray matoorkii waxa uu u diray inuu gacantiisa ku soo sameeyo matoor Tagyo isagoo taa ka hadlaya waxa uu yidhi si ay igu suurto gasho inaan sameeyo matoor waxaan ku khasbanahay inaan ka shaqeeyo meelaha lagu hagaajiyo matoorada waxaan xirtay dharkii lagu yaqaanay dadka ka shaqeeya geerashyada waxaana ku talagalay inaan noqdo shaqaale dhagan nugul
karti badan oo dhaqsi wax fahma. Tagyo shaqadani waxa ay ku qaadatay inuu ka shaqeeyo 8 sano, wuxuuna shaqaynayay 15 saacadood maalin kasta. Shaqada marka ay dhammaato ninkii geerishka lahaa ayuu ku dhihi jiray, igu qor waardiyaha habeenkii mushaharna kaama rabo. Waxaasi oo dhan waxa ugu dan leeyahay inuu habeenkii u soo jeedo si uu u dabagalo bir kasta iyo sida ay u shaqayso iyo sida loo sameeyo. Boqorkii Jabbaan xilligaa ka talinaya ayaa maqlay sheekada Tagyo, markaasi ayuu u soo diray lacag si uu ugu iibsado dhammaan qalabka lagu sameeyo matoorka. Wuxuuna leeyahay Tagyo waxaan soo iibsaday qalabkii, waxaana la imid Jabbaan. Boqorkii ayaa codsaday inuu arko qada sharafna igu casuumo, laakiin waan ka diiday ilaa aan sameeyo 10 matoor ay ku qoran tahay Made in Japan, waxaa lagu sameeyey Jabbaan. Markaas ayaan mudanahay qada sharaf iyo inaan arko boqorka. 9 sano kadib Tagyo waxa uu ku guulaystay inuu sameeyo warshad samaysa matoorada. Maalintii uu sameeyey 10 matoor oo dusha ay kaga qoran tahay Made in Japan, waxa uu u qaaday madaxtooyada. Markii la daaray matoorada ayaa waxaa soo galay boqorkii isagoo dhoola caddaynaya. Markaasuu yidhi, codkii abid ugu macaan ayaa maqlaya, waxaana maqlayaa codka matoor lagu sameeyey Jabbaan. Ardaygii dadaalka badnaa ee Tagyo waxa uu leeyahay, markii aan indhahayga ku arkay sirtii ay ku horumareen reer Yurubna u soo raray Jabbaan, ayaan seexday muddo 10 saacadood oo xiriir ah. Mana seexan 10 saac oo xiriir ah muddo ku dhow 15 sano. Halka ayuu ku egyahay muuqaalkan, waxaana ku soo gunaanadayaa hurdo uma taalo nin han leeyahay oo meel sare higsanaya.